Sacdiya canshuurooda oo ah hooyada gurigan iska leh ayaa maanta inoo sheegtay in muddo 5 sano ay ka hortaagnaayeen garsoorka dalka isla markaana waxba looga qaban waayay cabashadooda ku aadan guri ay lahaayeen oo deegaan ahaan ku yaal degmada Cabdicasiis uuna sheeganaya ruux kale sida ay hadalka u dhigtay waxay shaaca ka qaaday in muddada 5 sano ay mar walba la tiigsadeen hay'adaha garsoorka dalka ilaa ay haatan aysan jirin wax miro dhal ay heleen waxayna hay'adaha dawladda ay ka dalbatay inay cadaalad u hesho gurigeeda gurigaasaytu ku yaal xaafadda Cabdicasiis oo dhinaca qorax ka soo bax waxaan naga xiga Cabdullaahi Gaafow gurigaas annaka iskale muddo 5 sano ah waana lagu haystaa si kastaan suubinay wax kastaan suubinay wax meesha ka kala soconaya male wax xaq raba male ma taqaanaaye xataa waxa ninka guriga nagu haysto oo la yiraaho Maxamed Yuusuf Xirsi ku magac dheer Romaane Xirsi guriga nagu haysto ana iska lahayo gaala ii deganaa jirto wiiri gurigaasna wiligiis gaal ma degino isagoo qabyaha dagaal ku dhacay gurigo qabyaa dagaal ku dhacay annagana gurigeyna waa la yaqaana caan waaye Bakaaran deganeyn Xuseen Cismaan Axmed Rooble guriga madfacaan nagu dhacay 4 caruura iyo aabahood iyo wadaad aan qaraabanaha ku dhintay dokumenti la'aana annaga kaliya Soomaali kama nihin Soomaali oo dhan haddii dagaal iyo qax dhacay dad badan dokumentiga ka dhumay oo dib aanan gaarin waayahay marqaatiyaal keensadaana la yiri dacwada 5 sano nagu socotaa marqaatiyaalkeena waa la qaabili waayay adeer Abuukar Cumar Cadaana kamida oo materiaalka laga qaaday Sheekh Muuse Maxamuud oo dhisa kamida Sheekh Aadan Cali Axmed oo waardiye ka ahaaya kamid Cabdullaahi Gaafow waa joogo darisna la ahaay annagu taana xaaraana ma rabno gurigaas annaka iskale wax waana loo qaban waaye maxkamad wax qabanaysa male gacanta ka hadla la yiri gacanta ka hadla gacanna kama hadlayno xaqayna annaka iskale waana la dulminayaa meeshaanaytan waa u jeednaa inaana wax xaq alla rabin wax ka socdana aysan jirin marka intii ummad waxaan u sheegaynaa inaan gurigaas annaka leenahay hadhow dhibka ka dhacane ma taqaanaayay ay iiga xambaarsan doonaan annaga waxa way gurigaas annaka iskale ninkaas wuxuu ku dacwinaa gaala ii deganaa jirtay marka maanta afbuuxo 5 sano ka bacdina ma adkaysan karno 5 sano dacwada ku socotaa maxkamad waxay qabanaysaa malaha laaluushna ma bixinayno mana bixi doono dib hadii uu yimaado hadhow ma hadlina lama dhahaayaan Abuukar Cumar Cadaan oo ah ninka laga gaday alaabta gurigan lagu dhisay ayaa sheegay in alaabta guriga lagu dhisay uu gacantiisa ku geeyay uuna la yaaban yahay qofka hadda gurigaasi sheeganaya in gurigu dhisan oo saasadaad la sheegto waase ilaahay ma u dabasha la arki doonaa dalkan anigu intaan ka ogaa intaas dhul ku yaal soonka liido oo dhisay alaabtiisana uga qaadayay intaan ka waran waa intaas waxaana si wanaaga dadka dhista haduu jooga biriga oo dadka diris la ay hataa la ugu sheegay inuu Gaafow ahay hadda koona su'aale iyadoo war ku jiro maanta war la gelshay wax la arki doono ka sii daran in la arko intaan ka ogaa intaas dulmiga beledka yaana wax biriga lagu yaabay ma aha ilaahay dalkan dad badbaadiyo oo diinta islaamka soo dabqa Allah u keeno haday xoog noqotaan hadda biriga qof wal xoog kara ma laakiin dad masaakiin oo dan yara loo markaa in loo kaalmeeyo waajib waaye gurigan oo la dhisay 80meeyadii ayaa injineerka dhisay waardiyihii gurigan waxay iyagana geestooda kaga warameen xaaladda gurigan uu soo maray iyo waxa ay ka og yihiin arintan aan maanta isugu nimidnay waa arin aad iyo aad aan ula yaabnay gurigaas ilmahaas iyo maamadan lagu haysto naloo sheegayo dhismadiisa waxaan dhisnay 88 aan dhisnay annagoo dhismada injineeriyadan qaabishanaynay waxaana cid sheeganaysana arintaasu arin sax ma ahan ilaahay wuxuu yiri ibn aadam inni haramtu dhulma ala nafsi
وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا ظلم نفتيدان كحرم إذن كان دحدين وإذن كحرم هاس ظلمنا gurigaas waa guri sidaas ah dadka dhisay anigu dadka dhisay aan nahay waardii 88 guriga la bilaabay joogay anigoo macallin aadan cali axmed waxaan ogahay in gurigaas Xuseen Cismaan uu leeyahay oo yacni oo wixii oo alaab la keenay wax walba ani waardii aan ka ahaayay markii dagaaladii ay dhaceysay gacanteena ku xareynay marka sidaas ajligeeda gurigaas Xuseen Cismaan Axmed Rooblan oo ogahay aniga asigana meesha igeeyay iyagana la noolaayay intaas sano aan gurigaas joogay 88 sagaashanka dabayaaqadiis markii dagaalka qabta dhacday ka bacdi oday Cabdulle dhahay oo reer Buulburda ah ayaa la keenay ani mar xaggan u wareegay bakaaraha guriga bakaaraha qabta nagula dhacday oo meesha masiibadu ku dhacday oo ilaahay yaani waxa way hanaga badbaadiyay adig 6 qof meesha noogu dhimatay Xuseen iyo 4 caruur iyo wiil oo qaraabada ahaayay sidaasan ogahay aniga waaba la yaabanahay hadii guri nin iska sheeganayo oo warqad iska wato boos la isku qabsaday waa la arkay guriyo dhisan oo qof timid ah waxaan ka hadlaynaa dhulka ninka la yiraahdo oo lahay agoonta Xuseen Cismaan Axmed Roobl oo lahay ma rabna ananka waxa salaameed inaan qaadano uma dagaalamayno una doodayno waxa anaga leenahay ama reer Cismaan Axmed Roobl ay leeyihiin anaga badan uguna filan waxaan sheegaynaa aan rabnaa inaan u sheegno ninka dacwada qaba oo dhulka nagu haysta hadduu dhul leeyahay nin dhulka maqan yahay oo yahay dhulkiisa inuu raadsado anaga dhul uma hayno hadduu nin tuugayahana waxaan u sheegaynaa inaan tuug wax dad tuug wax ka qaadi kara inaan ahayn u sheegaynaa Soomaalidu waxay ku mahmahdaa boonki la xado meel lagu yeershow rabaa maxkamadu niman xafiis iska furtay waxay rabaan sheega waay haday wax ku xukumaan kuma sii karaan dhulki laakiin been waa ku xukumi karaan lacagna waa ka qaadan karaan waxa la yiri la yira gool jira ma dhawaa la yiri hadii la tagana ma dhawaa la yiri hadii been wax lagu xukumo lacagna laga qaato waxaan ku sheegaynaa in xaw ahay dhulkii aan lagu sii karin maanta shirkan jaraa'id waxaan u qabeynaa arrin aan ku dhibtoonay oo dulmiga waa dhamaad diiday hadduu dhamaad diiday waxaan ka afeefeynaa inaan wixii ka dhaca maanta kadib guriga reer Cismaan Axmed Roobl foodey annaga aan nagula eedeyn waxaa jooga dadkii dhaqanka nagu hogaaminayay waxaa jooga odayaalkii waxaa jooga ganacsatadayni waa isu nimid waxaa jooga gurigaas injineer ka dhisay guriga reer Cismaan Axmed Roobl foodey wuxuu ku yaalaa degmada Kaaraan Cabdi Casiis oo ku yaala waa taranta Berbenti Soomaaliya anigu waxaan joogi jiray oo dad ku xanaanay jiray dagaalkii sokoy 4 bilood markuu socday waxaa la yaaba marka dawladda dhexe guri la dhisay in maanta la yiraahdo ana iskale ee dadna ka aqbalaan